السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. Xayawaanada ayaa mararka qaar waxa ay la kulmaan dhibaato iyaga oo ku sugan bariga, biyaha iyo xitaa hawada. Inta badanna waxay u yimaadaan oo ay caawinaad weydiistaan dadka iyaga oo ka cabsanayn isla markaana u muujinaya kalsooni badan. Hadda waxaan muuqaalkan kugu wadaagi doonaa xayawaano galay xaalado adag markay nafta u baqeen dadka u yimid si ay u caawiyaan. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. dad badan ayaa jecel quudinta dabagaalaha ama unreyska sidaad u taqaano. waxaana la sheegaa in dabagaalaha marka ay dhallaanka yihiin 75 ilaa 80% ay u dhintaan xaalado adag oo ay la kulmaan sida inay meel halis ku dhacaan, inay dabin xayawaano kale loo rabay ku dhacaan iyo wixii la mid ah. dabagaalahan dhallaanka ah ee idin muuqda ayaa waxa uu ku dhacay shabaq. shabaqaas oo ah kan kalluunka lagu soo jilaabto. isaga oo ka bixi la shabaqa meeshuna ay tahay meel duur ah ayaa si lama filaan ah waxa ku arkay laba wiil oo dhalinyaro ah. wiilashii ayaa soo qaaday shabaqana ka saaray iyagoo isticmaalaya maqas wayna sii daayeen. arrinka la yaabka leh ayaa ahayd in dabagaalaha markii la sii daayay halkii uu duurka ka geli lahaa uu ka tagi waayay dhalinyaradii caawisay. wiilashiina waxa ay go'aansadeen inay gurigooda u soo qaataan si ay u dhaqaaleystaan. eygan ayaa waxa qabsatay mar shiraac ahayd mar uu kaligiis ku sugnaa guriga. sida ah caadada eeyaha, cod dheer ayuu ku qayliyay si uu u helo caawinaanta dadka. waxa qaylada eyga ku soo leexday sarkaal boolis ah. waxa uu isku dayay inuu ka saaro dabinka uu ku jiray, laakiin eyga uu aad u argagaxsanaa isla markaana aan xasiloonayn ayay sarkaalka ku adkaatay inuu si fudud uga saaro dabinka. laakiin ugu dambeyntii waa uu ku guuleystay howlgalkii badbaadinta eyga. waxaa cajiib ahayd mahadcelinta eyga. intii uu ku istaagay lugaha dambe ayuu laabta geliyay sarkaalkii badbaadiyay iyadoo loo fahmay inuu u mahadceliyay. ninkan gaariga wata ayaa wadada ku arkay yeydan baahan. isagoo aanan ka labalabayn ayuuna gaariga halhaleel uga soo degay si uu u quudiyo. yeyda oo dareentay in ninkan uu iyada caawinayo kama aysan cabsan maadaama ay aad u baahnayd. ninkii ayaa u tuuray rooti uu sahay ahaan u watay wuuna ka dhaqaajiyay. laakiin yeydii oo aan baahi goynin ayaa ka diiday warkaas iyadoo inta dhinac martay gaariga hortiisa istaagtay. ninkii ayaa u fahmay inay weli baahan tahay wuxuuna mar kale siiyey qayb ka mid ah sahaydiisii wuuna ka dhaqaajiyay mar labaad. laakiin sida aad muuqaalka ka aragtaan yeydii weli kama aysan harin ninkii, iyadoo loo fasirin karo inay weli baahan tahay iyo inay u mahadcelinayso oo ay naxariis iyo jacaylba u qaaday. kooxda badbaadada duurjoogta ayaa u soo gurmaday sac madaxa la galay geed. saca dhibaatada haysatay waxaa u sii dheeraa dibi soo weeraray iyada oo xaaladaasi ku jirtay. malaha jaanis ayuu u arkay. dadaal dheer kadib kooxdii badbaadada waxaa u suura gashay inay kala jiraan laamaha ay madaxa la gashay saca. sidaas ayaynu ku badbaaday. haramcadkan oo ahaa mid aad u ooman ayaa madaxa la galay dhiri macdan ah kadibna awoodi waayay inuu madaxa kala baxo. haramcadkan oo xaalad xun ku jira ayaa waxa arkay dadkii tuulada deganaa. isla markiina waxaa goobta soo gaaray saraakiisha kaymaha oo ugu dambeyn si nabdoon ku badbaadiyay haramcadkii. ninkan ayaa waxa uu baalahan u fuulayaa si uu u soo badbaadiyo qooley ku dhagtay tabeelaha samaafaraha. ugu dambeynna waa uu ku guuleystay. saaxiibayaal muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka hesho mawduuca like saar lana wadaag asxaabtaada kale. sidoo kale haddii aad jeceshahay inaan qaybo kale kasoo sameeyo commentiga igu reeb. insha Allah waan soo badin doonaa. inta aan ku kulmi doono mawduuceena xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.